السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمود ورفاح حرسي وحان سلام يا دمان مدة الصومالية من بيجوغان قارهان رير مريكان قولك من السوداء وحان كلنا قولك من السوداء وحان ربائنا اللو ذاقو قصة آد وحانون بدن عد والبو إسلام روح بو الصومالي أنا تصار أو فلان أما عبر قادشو عد والبو ظالم وربطين روح بالآذن الدول من السنة سيدو كله إني أنقطو tusaale cashir wax laga barto iyo dadka maxkamadaha isku dacweeyo ama u maleynayo Mareykan inay cadaalad yaalin iyo cid walba aaminsan haday single mother noqotay single father haduu noqday dadka ilmaha isku haysto dadka isdulmiyo waxa weeye maxkamadii ugu xumeed ebid dad Soomaaliya dhaxmarto aniga iyo xaaskayga war xaaskayana dhaxmartay ayadoona ku soo dhamaatay aad weyn oo raacday gabadhii waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota in ay tahay wadankani cadaaladdu ay leegtahay cirka ayna ka yar tahay wax musuqmaasuqa meel yar jir uu ka baxo marka waxaan doonayaa reeraha dhisan inay tusaale ku qaataan kuwa iskhilaafay isdacweeyo inay tusaale ku qaataan cid walba madluum ana waxaan u rajaynayaa in mataqaanay samirka Allah wallahu asa binu ilaahi leeyahay ruux walba la dulmiyay gabarha noqdo nin ha noqdo in mataqaanay dadku ay saabiriin noqdaan ilaahina mataqaanay dadkaasi wallahi yuhibbul muhsinin ilaahi quraanku sheegaya waxaan rabaa in la hadlo dadka kale ee mudabdabka dadku isku diro ilaahi quraanku wuxuu ku leeyahay alladina yabkhuluna an-nas yamuruna bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli wa qadatina wa a'tadna lahum adabun min surati an-nisa waxaan doonayaa marka qisadan oo kooban oo mataqaanay sidii ilaahi uu yahay wixii qabsaday inaan iga sheekeeyo waxaan imaaday wadanka Mareykanka 2017kii on ku cusbaa laba bil ama bil saddex wiil ka bacdi baan gabar Soomaaliyeed oo ilmo wataan guursanay aad iyo soo dhaweysay gabar aad u fiican heed xaaskayga noqotay oo ii qaaday wiilka horeeyay ka bacdi walici aniga aan iska tagay shaqo gobolka la aaday waxaa dhacday in markii ka bacdi islaan kale oo isnaqaan jiray South Africa ee waxaan jirin oo sheekaysay sheeko ku saabsan wax saqajaanimo afkayga hadda aan ka soo bixi karin gabadhi xaaskayga ay soo wacday ka bacdi waxaan ku dhahay walaal qofkaasi waxaan dhaxmaray ma jiro arrintii meelo weyn bay gaartay taxi message cid walba loo diray way soo wacday maalinta dambe idhaaray ugu tiri waan u dhaartay caadi bay iska ahayd ka bacdi waxaa dhacday in ay bishii 8aad ay telefoonkeeda aan bloggareeyay ka bacdina ay labadii cunug macalaki caloosheeda ku jiro aniga dhalay doonto mataana marka ahaayeen iyo gabadheedii oo 7 jir ay wiilkeedu 9 jir intuba ay dacwo igu qortay oo booliska ay tagtay ayna report gareysay kiis oo wuxuma abid ka dhaco Mareykan 208 sano ka badan buu dhisan yahay cadaaladda wadankan galayna kiiskaasna galay number 1 noqday kiiska oo wuxuma abid la record gareeya ama accusation ruux lagu sameeyay midku u xumaa العدل من الله إلهي بعدالة إلهي بنا عدالة صح يسيجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلو يري وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أن عدالته معنيه ما كان الله لا أهل الإنجيل كواتك النبي عيسى كحكم وحي إلهي كوسود الجي دن أن عدالة نصات روحنا عدالة كحكم سمين إننا وظالم أما وفاسق dadkaasi ayagoo kristaan ayagoo mataqaanay dad aanu kala leejadnahay kula mudnahay iyo waxay mareen cadaalad ama ay sameeyeen kiiska markii la qoray intaan maqnaa oo aad iyo aad ugu mahad celinayo ninkii reportka qoray booliski ee county ciyaalkii mataqaanaa kuwa u dooda MCRC la dhaho MCR la dhaho iyo dhamaan ummadii ka qayb qaadatay expert noqotay cid walba ayagoona hal yar wax walba ay ku hadashay gabadha xaaskay ilmaheeda gooni loo qoray saacaday ku hadleen wax walbana meel loogu qoray ka bacdina la soo qaado waxaad ku hadashay waxaad nagu tiri goonin loo kala qoray fiidoonin laga duubay marka waxaan doonayaa muhiimadda ah inaan fiidoo maan soo duubo ma aha inaan gabadha walaashay xaaskayga ah aan ceebaysto ma ahan inaan mataqaanay aan ka dabato waxay ugu samaysay anigoo cafiyay anoo gacmaha ka xiran ولله عليا سوء عليا كان لله كلها وان عفيي ساعتها ولنا لما عفين كيسكي وحقوصه لما إلا تراي اللي عادو أني هو كوليستو محكمة دي بقولكي وبقول دايني كان مظلوم ويوعى قفتم بعد الدرنب وحنا رغم كقصة أقوبا واحد عي
وأوح أخلاق حما وواحد دينتين وكحن وواحد أخن كانوا كحن وحان دونيا أنا كحشونين وحول بول قري إن هالك أيدي كوشيغو أنا الفضيحين يعبارين إجهين نيك عبارين سنة فضيحين سنة معابين سنة وعنيا قبل أصلا ما كلا قوينو ما تقانا المي هيسا وليانا ما كلا قوينو لامبرون وحنا عارفين دونين أو نضد كان ظالمين كودا أشيكي أما عد والبو كيسا كله هذا الله ديارس الدعوة داس والله ما عارفين أيو ونيس قرنا يا مغير وهم شيء أيو وحان كلو ربا إنا هذا دمان ولا ذي مسلمين تها أما قبيل كي جار أهان ريوس كل ريوس خلف وناجلي سمية دمان وقادينو إدل ونومد علينا ميلو بيجوان إلا نبرسكا إلا يمين الصودا دالية دبد انت إيسو دعيسي ونومد علينا يا بقول كيو بقول إلهي خير هنسيو مساجد السيدو قلي وحان كانوا أمهد علينا يا لوير كيغا جاي مانثيو مانكي جولي هايدي يو دمان إستين يو إكسبات كيغا دكتور مكوري يو دكتور ريد dadkaasoo cadaalad fiican ii sameeyay almost 6 ruux bay haayeen waanu mahad celinayaa boqolkiiba boqol xoriyadii dib igu soo celiyeen cadaaladana banaanka soo dhigeen kiiskani wuxuu ku bilaabanayaa sidan qisadan soo socoto gabadhani markay walacday waan ka tagay markaan ka tagay inta hore inuu sheegay gabadhii dacwo waxay ka bilowday inay gabadheedii yareed ay sii qaadato jirka ay booliiska geysay oo ay leedahay ninkaas ayadoo fadhiga wada fadhiyo awradiisu saaray dhabtiisa bay aabad ku ciyaaraysay dhabtiisu saaray gabadhii way carartay masuus soo xirtay wuxuu dhahay amal ma sheegi kartid ka bacdi maalinka labaad sidoo kale sariirta hooyadeed waxay leedahay gabadha wax yar wax weyn oo adag ba ay taabtay mar waxay leedahay sariirta walaalkay mar sariirteeda saddex shay oo kala duwan bay u tahay u sheegtay intay markaa ciyaalka tababaraysay ayada iyo dadkii la joogay maamo weyn oo dariskeeda ayaa umaado ku dhahay walaal ruux muslim oo islaana walaalka waliba in maadeer atin gabadhan waliba gabar ehel aan nahay wey yaa waxaan ku dacweynaysaa alla ka baq jooji waxan islaantii baa islaamka lagu warrantay gabadhii waa la sii qaaday waxaa la geeyey meesha corner house ciyaalka looga qaaday fiidiyowga gabadhii markii meesha la geeyey waa la waraystay tabtii hooyada u sheegtay bay sheegtay waxaa la waxani maxaa ku baray maxaa ku ogeysiiyey xageed ku aragtay weligaa ma aragtay waxay tiri yes my uncle adeerkay abtigay oo film galma daawanayo ayaan arkay dhowr mar hooyadiina waan u sheegay waxbay ka qaban weyday abtigeed oo wadanka la joogo guriga ku nool yahay magac kale wadan ku jooga abtigeeda meesha soo galay alcadlu min allah taasoo ah dulamka ah meeshii aniga laga rabay maadaama uu maqnahay waxay tiri abtigay baa filimkani aan la daawaday abtigii lama waraysanin lama raadin dib looma dabagelin sidii baa loo xiray ka bacdi wiilkeedii oo 9 jira bay sii qaaday wiil aad iyo aad u wanaagsana wiilkii waxay geysay booliiska waa 7 bilood ka bacdi markaan sii maqnahay wiilkii waxay ka bilowday wiilkii fadhigu fadhiyay wuu shumiyey wuu cararay musushu isku soo xiray ilaa aan shaqada ka soo baxayay musushu ku jiray wiilkii sidoo kale waa la sii qaaday waxaa la geeyay MCRC meesha ciyaalka xuquuqdooda looga doodo filim baa laga duubay 14 daqiiqo wiilkii wuxuu yiri waligay ninkaasi imuna taaban wax xumaan ana iguma sameyn nicid kala jirta la guriga aad ka cabsanayso mayu yiri ninkaani wanaagsan buu ahaa waliga xumaan iguma sameyn waxay ku tiri booliiska iyo MCRC-ga inaan wiilkan musushu ku jiray waxa marka loo soco shumiska kaliya ma ayadu waxay wadaa jaal abuse am cunugu abuse galay musushu ku jira inta shaqada ka soo baxay aniga habeen baa shaqeynaa ayada habeen bay shaqeynaysaa labadu waa la soo ogaaday marka walay amusay waa la soo wacay waxa lagu dhahay qoftaas ciyaalkeedii Minnesota ma imaan Minnesota ilaa la soo qabto waxa dhacday in maxkamad la sameeyo maxkamadda ma joognaani ayada loo diray ka bacdi waa la soo qabtay waxa la keenay Minnesota 12 bilood baan ku xirnaa maalinkii dambe waxaa loo dareeray juurigii maalinkii la joogay waxaa noqotay inay noqoto arrintii DNA anigii ilmahaygi iskaga kana qaado walaalkeed meesha uu soo galo walaalkeed magac kale meesha uu ku joogo arrintii marka waxay noqotay arrin qabiil bay u noqotay oo irinteedii dadka ehelkii waxay ku dhaheen annagu wax kiiska naga dhaxeeyo
وأنا إسلام تام ولكن أرنتي أنا فرق الشن لا يكون حوري مكانية أرنتني واحد كليو لديه كرمانته والسمين كان عمدن بيجو قلي وقبض ولكن نكمل هو مغنى مصر حرسي إن حين نقطتين نكمل هذه دولة دي واحد كلي مكان تايت كسارة يعني وحاول وعنيك لا يرين تاي كسبان كل واحد يجنا قبصدين ولكن ما دام قبض أي شيء إن فيلم قال ما على دعوتي نكمل إن دولة دي نورمال محكمة دي بيقولوا كان مالك الدم اللوير كي يروحوا سميه وحو كاني مجلس الصحراء وضم كجو حلو صوغر يمشوا كنورياي تلفون كسالو رادي ولا سوقبتي خبرت صدقديس عيالك الصدقود oo dhinaca aabaha oo ciyaalkani la joogeen baayadana la keenay maadaama looga shakisanaa in ciyaalkani ay soo tababartay ay rabto aniga xaaskay inay kala geyso arintii lawyer-kii uu aamusay waxa la sameeyay marka maxkamadda baa dhinac laga soo galiyay islaantii iyo wiilkii gabadha la dhashay kiisku wuxuu socdo wax la saardiyo lawyer-kii wuxuu soo bixiyay banaanka wiilkii intuu noo soo faray zaman ku dhanin kan waaninkii booliska ay soo qabteen warqad loo geeyay sododii banaanka ku sugaysaa yarkii waa la wareystay maxaa dhacay baa lagu dhahay adiga war maxaa dhacay wali waxa kuma sameeyay yarkii ilin gabax naxdin lawyer-kii maxkamaddii saantii waxay tiri xaakimayaashu waxay dhaheen hal saacana la siiyo lawyer-ku wuxuu banaanka soo dhigay dawladdu waxay raadinayeen hal sano ninkii inuu halkan yahay oo wiilkiina uu joogo maxkamaddii oo booliska keeneen islaantina sidoo kale sododii ay booliska keeneen saantu waxay tiri maxaakiminta kulli waxay dhaheen hal saacana la siiyo sheekadii waxay ku dhamaatay in aniga guusha ay raacdo taraajkiina aan saa ugu guulaystay alcadlu min allah alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay mahad iska leh qisadan waxaan doonayaa in mataqaanaa cimri qaasho ay noqoto aysan noqonin mid laisku fadaxaysto waxaan rabaa marka inaan la hadlo dadka daalimiinta ah kuwa dadku isku diro mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha haulaai walaa ilaaha haulaai kuwa ah oo ilaahay ku sheegay fi daraki asfali min annaari oo ah dadka mataqaanaa dabaqada hoose ku noolaan doona munaafiqiinta ah horta waxaan leeyahay joojiya tan kale kiiskan cid walba ka qayb qaadatay iyo cid walba xarigay ku farxday waan cafinayaa ilaahayna ayagana caafis ha warsadaan gabadha walaashay xaaskaygan ahayd ayadana sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay u toobad keento ilaahigii abuurtay ilmahigana ku abuurayna ha u soo noqoto dambi dhaaf ha warsato waxaan kaloo rabaa dadka inaan u sheego facebookan ku arkay gabadhan ayadoo ila sawiran facebook la soo gelinayo waxaan rabaa dadka inaan ka soxo gabadha xaaskayga ma aha waa ilmahayga hooyadood waa horaan kala tagnay maalinka kiiskan qortaan yaan furay waa hadda waa xaaskayga ma ahan waxna yaa la shay shareecaynin oo la sii aflagaadayna ama waxba lagama faa'iidayo min allahi bay ka cafisan tahay laakiin cid walboo dulmigan la gashay weligay ma cafinayo wabilaahi towfiiq waxaan iga rajaynayaa inaad taartaan videogan inaad ii sheegaraysaan oo cid walboo mataqaanaa Soomaaliya ay gaarto si fiican loo daawado wixii wanaagsan laga qaato wixii xun la iska drop gareeyo muhiimadeedu weyn waxa weeye qoysaska la kala dilayo la kala tuurayo la kala qaybin wax faa'iido ma laha maraykan cadaalad baa taalo gabdhaha aaminsan in ruux lagu abuse gareyn karo aniga tusaale lagu qaato cid walba intaasaan ku xirnaa boonkii wuxuu ahaa 200,000 waxa weeye wax walba wala sameeyay cid walba furtaal way markii dambe waxa lagu kala baxay sharciga Mareykanka ceebta ciday raacdana dadka maxkamadda way joogo ogaayeen cid walba kiisan ka warqabtay wuxuu ku dhamaaday ceebiyo maalinka la qaawan yahay ceebta Allah waxaan u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan single mother waxa weeye waxaan dhihi lahaa ilaahay ka baqa dhaqankeena suuban iyo wanaaga dadka Soomaaliyeed ugu yaqaan meel yaan looga dhicin wabillahi tawfiiq khayr baan ilaahay inta xun baan ka hadlayaa inta fiican kama hadlayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.